بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين كلمة وحكو سابسنا دونتا إن شاء الله تعالى فضل يوم عرفة مالنتا عرفة فضل إلى هاي maalintaasi waxa aan samaynayno nagala doonayo iyo maalintaasi haddii waxa nala faray aan la nimaadnaa maxaan faa'iideynaa dhowr xadiis aan ka soo qaadan doonaa insha allahu tacaala oo ka mid ah xadiisii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ka sugnaatay oo saxiixa xadiiska ugu horeeya wuxuu noqonayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo tilmaamay maalinta carafo waa maalinta ugu badan ee allah tabaaraka wa tacaala addoominkiisa naarta uu ka xoreynayo waa maalinta carafo weeyaan marka maalintaasi waa maalinta ugu badan ee rabbi tabaaraka wa tacaala addoominkiisa oo ka xoreynaya maalintaas marka qiimo gaar bay leedahay waa maalinta bisha caraf ay tahay 9 soo ka rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo tilmaamay fadliga ay leedahay maalinta carafo soon lala yimaado maalintaasi soon baa la doonaya maalinta 9aad wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam maalinta carafa soonkeeda waxaan ilaahay subxaana wa tacaala ajar ugu doonanayaa inuu igu ku dhaafo sanadkii lasoo dhaafi dembiyada yaroo kaa dhacay iyo sanadka soo soco dembiyada yaroo dhacaya bal aada u fiiri waa jaanis aada u weyn walaalayaal rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu noo tilmaamayaa qofka sooma maalinta carafa sanadii lasoo dhaafay dembiyadii ka dhacay oo sakaa'irta ahaa waa loo dhaafi ilaan kabaa'irta tooba waajib ka ah sanadka soo soco wixii ka dhici lahaa oo sakaa'irna waa loo dhaafaya waa jaanis aada u weyn walaali aan ka faa'iidaysanno oo maalintaas soonkeeda aan ku dadaalno waxaana loo sunneeyaa qof kasta oo muslim ah maalintaas inuu sooma ilaa qofka xajka joogo oo banka carafa taagan mooye banka carafa taagan maalintaas iyada ah allah tabaaraka wa tacaala addoominkiisa wuu ku faanaya ilaahay baa soo dhowaanaya tabaaraka wa tacaala markuu soo dhowaado malaa'igtii buu la hadli wuxuu leeyahay addoominkeeda bal eega taagan bannaankii carafa ee gacmaha taagoo i baryaya ku haya labayka allaahuma labayka labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wاlnicmata wاlmulka laka laa shariik dhahaaya wuxuu leeyahay maxay doonayaan dadkaani waxay doonayaan waa caddahay ninka banka carafa taagan ma bannaankii carafa taagan jabaluraxma taagan wuxuu doonayaa wax weyn ilahay uu dembi dhaaf subxana wa tacaala ee dhulkii uu ka tagay uu ku soo laabto isagoo lamid ah xagga dembigii ka mid ah maalintii ilaahay macnaa adduunka aan ku soo biiray oo hooyadiis ay dhashay soo nadiif ah macnaa dembi leh markaan ognahay markaan dhalanayno dembi maana lahayn saasoo kale uu soo laabanaya qofkii xajkiisa si sharci u guto maalintaas iyada ayib rasuulka calayhi salatu wasalaam wuxuu tilmaamay ma jirta buu yidhi maalmahan 10 maalmood camal la sameeya oo allah uu ka jecel yahay maalmahan 10 oo bisha carafa saxaabada ridwanullahi calayhim arrin ku taagnaa bay sheegeen waxay yidhaahdeen bal jihaadna ka waran qofkii jihaadi xitaa bal ka waran rasuulkii allo markaasuu rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xataa qof jihaad u baxay maalmahan camal la sameeya ka khayr badan ilaa qof naftiisii maalkiisi la baxay oo aan alla darti u baxay oon la soo laabanayn mooye sayidina cumar bin khadaab radiallahu tacaala canhu ardaahu waxa u yimid nin yahuudi ah wuxuu yidhi cumarow aayad adika ilaahay idinku soo dejiyey hadday ana nagu soo degi lahayd aayaddaasi ciid baan ka dhigan lahayn sayidina cumar wuxuu yidhi maxay tahay aayaddaasi aayad wax weyn aayadda suuratulmaa-ida ku jirto alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa raditu lakum alislaama diinan waa alla wuxuu tilmaamaya tabaaraka wa tacaala maanta oo carafa nabi maxamed uu taagan yahay ayaan diintiina idin kamilay raallin idinkaga noqday aayaddaasi suuratulmaa-ida ku jirtaaye low annaga haddaana reer bani israil ama yahuud aannahay nagu soo degi lahayd buu le ninka yahuudiga cumar soo la hadlaya ciid baan ka dhiganayna maalintaas iyada cumar radiallahu tacaala canhu ardaa wuxuu yidhi ayadda waan ognahay meeshay ku soo degtay wakhtiga ay soo degtay maalin carafa ah
jumco tahay nabi maxamed oo banka carafa taagan bay ku soo degtay aayadaas markay soo degtay sayyidina abubakar waa ooyey waa murugooday murug buu muujiyey saxaabadu radiyallahu calayhim su'aal bay weydiin waxay yiraahdeen abubakar maxaa ka murjinaya waaba maanta nimco ilaahay siin al-yawma akmaltu lakum markaasuu wuxuu yiri hadee sayyidina abubakar fiqigiisa aad u fogaa nin faqiih buu ahaa saxaabi daliil faqiih buu ahaa wuxuu yiri hadduu shay dhamaystirmo nuqsaan baa bilaabanaysa quraanka iyo waxiga soo ma dhamaanin hadana maxay naga tagaa marka aan ka baqayo dabcan way dhacday aayadaas markay soo degtay kadib nabi kaleey salaam wuxuu noolaabay culimadu leeyihiin 85 macasho 85 maalmood buu noolaa sallallahu wasallam alayhi tayib marka maxaan meesha ka fahmaynaa walaalayaal in ay muhiim tahay maalinta carafa inaan ka faa'iideysano qofkii soo soomay maalmihii bishii ay koow aheeday ilaa 9 ka soomo waa fiican yahay laakiin qofka ay yani maragtay maalinta 9 ay tahay ha ka faa'iideyso jaaniskeeda iyada bishu waa 9keeda waa inaad ka faa'iideysaa oo ku aadan birita oo isniin ah haddii rabbi subxaanahu wa tacaala una gaarsiiya aan uga wada faa'iideysana soon sababtoo ah sanadkii hore dembigii dhacay oo naga dhaco khaladaadkii yaraanay dhacay iyo sanadka soo socda baa nagu dhaafaya waa jaanis aad u qiimo badan ilaahay baa jecel subxaanahu wa tacaala maalintaas camal la sameeyo cibaado ah oo ka fiican oo alla u jecel yahayna ma jirto marka aan ka faa'iideysana soom yawm carafa qof walbana waxaan leeyahay ka faa'iideysa hada wabillahi tawfiiq والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته